shirkii Berlin ama waxa English loogu yeero Berlin Conference waxa uu ahaa shirkii Afrika lagu qaybsaday muddadii u dhaxaysay 1884 ilaa 85 wuxuu abaabulay gumaystihii Yurub ee Afrika intii lagu jiray xilligii kacaanka warshadaha iyo soo bixitaan kadis ah oo ahayd inuu Jarmalku noqday awood super power ah. shirkan waxa lahaa maskaxdiisa wadanka Portugiiska waxaana agaasimo ka noqday Otto von Bismarck oo ahaa hogaamiyihii ugu horeeyay ee Jarmalka. natiijadii ka soo baxday shirka waxay noqotay xeer lagu magacaabi jiray sharcigii guud ee shirka Berlin. xitaa waxa loogu yeeraa mararka qaarkood Race for Africa oo macnaheedu yahay in loo kala tartamo wadamada Afrika. shirkan ayaa ku soo beegmay xilli ay sii kordhayaan dhaqdhaqaaqyada gumaysiga ee dhanka quwadaha reer Yurub isla markaana ay meesha ka saarayaan oo ay mamnuucayaan nooc kasta oo ka mid ah ismaamulka iyo aayaka tashiga qaaradda Afrika. boqorkii Leo Balka labaad ee Belgiumka ayaa lagu tiriyaa inuu iftiimiyay meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika. waxa uu u diray safaro indha-indhayn ah iyo sahamiyayaal badan waxaana bilowday in ay dunida u cadaato inay jiraan qaarad cusub iyo boqortooyo cusub oo kaalintooda ka qaadanaya ilbaxnimada caalamka. boqorka Leo Balka labaad waxa uu hami gumaysi ka lahaa wadanka Congo oo uu soo helay sahamiyihii caanka ahaa ee Stanley loogu magacaabi jiray kaas oo heshiisyo dhowr ah la saxiixday hogaamiyayaasha qabaa'ilada iyo madaxda qaranka Congo kuwaas oo ka tanaasulay madax banaanidooda iyagoo hadiyado yaryar ku bedeshay wadankooda. ujeedada boqorkii Belgiumka ee Leo Balki labaad uu walalahan ka lahaa waxay ahayd inuu helo aqoonsiga Congo. sidaas darteed waxa uu isku dayay inuu ku qanciyo ganacsatada Ingiriiska inay hawlahooda ganacsi ka bilaabaan Congo wuxuuna ka shaqeeyay inuu ka dhaadhiciyo in ganacsigoodu uu amni badan ka helayo maamulkiisa Congo marka loo eego meelaha kale ee gumaystaan maamulka Portugiiska iyo Faransiisku. wuxuuna boqorkii Belgiumka ee xilligaas ka dhaadhiciyay saaxiibkiis Otto von Bismarck oo ahaa hogaamiyihii Jarmalka inuu aqoonsado dawladda Congo. waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirka asaaska u ahaa waxa ka mid ahaa dhismaha guddida caalamiga ah ee baarista Afrika iyo horseedka ilbaxnimada iyo xadaaradda. isla xilligaas loolanka Faransiiska iyo Belgiumka ee quseeyay Congo ayaa soo jiitay indhaha wadamada reer Yurub. Otto von Bismarck hogaamiyihii Jarmalka waxa uu damcay inuu shir ku qabto Berlin si loo xalliyo dhibaatada Congo. shirkaas oo dhacay November 15 isla sanadkii 1884 14 wadan ayaa shirka ka soo qayb galay oo ay ku jiraan 5 wadan oo iyagu aad u waaweynaa oo daneynayay qaaradda Afrika marka dambana iyaga loo kala qaybin doono. 5 wadan waxay ahaayeen Jarmalka, Ingiriiska, Portugiiska, Faransiiska iyo Belgiumka. hogaamiyihii Jarmalka waxa uu qayb weyn ka qaatay isu dheelitirka awoodda wadamada reer Yurub si aan la isugu layn dhulka gumaysiga. waxa uu garwaaqsaday in laga hortago isku dhaca wadamada reer Yurub gumaysiga Afrikana uu dhaco iyadoo aan dagaal hubaysan dhicin. xalkuna wuxuu ahaa qaab dhismeedka shir reer Yurub ah. sidaas darteed wadamada reer Yurub waxay si weyn ugu qanceen suurtogalnimada habkan heshiiska ah. heshiiskaas waxa la isku afgartay qodobada soo socda. qodobka koowaad ee heshiiska dhexdhexaadnimada dhulka Congo iyo xorriyadda socdaalka iyo ganacsiga. taas macnaheedu waxa uu ahaa in dadka reer Congo ay dhexdhexaad ka noqdaan wadamada Yurub oo aan loo adeegsan wadamo Yurub ah. qodobka labaad xorriyadda socdaalka iyo ganacsiga badda ee Congo iyo wadanka Niger. taas macnaheedu waxa ay ahayd in loo ogolaado inay badda maraan doomaha dhammaan quruumaha reer Yurub. qodobka saddexaad ma jiri karto dawlad maamuli karta xeebaha Afrika kaligeed iyada oo aan la socodsiin ama ay raali ka ahayn dawladaha kale ee saxiixay heshiiska. qodobka afaraad ma jiri karo wadan ku dhawaaqi kara ilaalinta aag ka mid ah ama buqcad ka mid ah qaaradda Afrika iyada oo aan ilaalintaas
ayna ku taageerin dowladaha kale ee saxeexa heshiiska. taas macnaheedu waa maxmiyad ma samayn karo waddan ka tirsan wadamada Yurub ilaa ogolaansho laga helo dhammaan wadamada Yurub ee saxeexa heshiiska. qodobka shanaad, dalalka Yurub waxay ku midoobeen inay ka soo horjeestaan heshiiska Ingiriiska iyo Boortaqiiska, iyagoo garwaaqsaday in Ingiriisku doonayo inuu Kongo ku wareejiyo Boortaqiiska si uu ugu beddesho hanti Boortaqiisku u soo bandhigay. taasina waa mid ka soo horjeeda wax wada qaybsiga cadaaladda ku dhisan. haddaba marka la qiimeeyo heshiiska, waxaa laga dheehan karaa inuu ahaa shirkii ugu horeeyay ee gumaysiga reer Yurub ay ku heshiiyaan la wareegidda meeqaamka Afrika iyo maamulka iyo gacan ku haynta inta kale ee dhulalka qaaraddu leedahay. sidaas darteed waxaa loo arkaa fal caalami ah in la abaabulo bililiqada qaaradda Afrika. shirku wuxuu ogolaaday saxeex caalami ah oo lagu cunayo hantida qaaradda Afrika. ugaasyada qabaa'ilkuna ma qadarin macnaha heshiisyada ay saxeexayaan, waxaana dalalkooda la hoosgeeyay ilaalo gumaysi iyadoo loo cuskaday inaysan ka jirin goobahan sharciga caalamiga ah oo ay saxeexeen heshiis yaga iyo Yurub u dhaxeeya, kaasna ma qusayn doono heshiisyada caalamiga ah. waxaa xusid mudan in markii shirka la qabtay ayna jirin ergo Afrikaan ah oo Afrika matalaysa, balse taa beddelkeeda arrimihii Afrika iyo masiirkeeda waxa loo daayay dalalka reer Yurub. qaybsiga Afrikana waxa uu saldhig u ahaa xuduudaha dowladaha casriga ah ee maanta jira. waxaa ka dhashay shirkaas tuugtii reer Yurub isku aruursadeen in waddan kasta oo reer Yurub ah uu soo dirsaday baayac mushtaro, basaasiin iyo waxyaabo kale oo badan oo ay xitaa ku dabagabadaan shirkadaha siday ula wareegaan Afrika iyo inay helaan saxiixa madaxda Afrika ee quseeya inuu waddankoodu noqdo maxmiyad reer galbeed ilaaliyo. taas waa mid ilaa maanta jirta. bal waxaad u fiirsataa wadamada Afrika maanta ma haysaa waddan horumar gaadhay ama waddan hore u socday.